kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin xiiso badan oo idinka hayno saacadii ugu dambeeyay heesta komisoonta ee qabsatay ee ay soo wadaan fanaanka Qamar Suugaan iyo fanaanada Najmi Nashaad. heestaasi oo noqotay hees lagu soo bandhigayay muuqaal aad u dhaqan xun isla markaasina ay fanaaniinta siibaha fanaanka Qamar Suugaan oo afka ku hayo tuumbada lagu cabo badeecada. haddaba daawadayaal intaanan u gudagelin warbixintaasi ugu horeyn muuqaalkan aad daawanaysid like saar isla markaasina channelka subscribe saar si aad soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha badan ee halkan soo gelino. waa kan muuqaalka heesta ee ay fanaaniintu soo wadaan inkastoo aanay weli soo bixin bal daawasho. muuqaalkaasi gaaban ee komisoonta ah eed ku soo wada aragteen fiidiyogeena ayaa saacadihii ugu dambeeyay biraha bulshada qabsaday, kaasi oo dadka badankooda ay ku tilmaameen heestii ugu dhaqanka xumayd inkastoo aanay heestu weli soo wada bixin, balse heesta komisoonta ama muuqaalkaasi hordhaca ee laga soo baahiyay ayaa noqday muuqaal dhaqan xun maadaama fanaanka Qamar Suugaan marka uu heesta qaadayo uu gacanta ku haysto tuumbada lagu cabo badeecada, kaasi oo afkiisa uu kasoo baxay qiiq aad u tiro badan iyadoo fanaanada Najmi Nashaadna ag taagan isla markaasina uu fanaanku qiiqo afkiisu aad uga soo baxay si aad u tiro badan. heestan ay dadka badankoodu ku macneeyeen hees dhaqan xun maadaama fanaanku uu soo bandhigay isla markaasina uu gacanta ku hayo tuumbada lagu cabo badeecada. haddaba daawade adigu sideed u aragtaa in fanaanka Qamar Suugaan iyo Najmi Nashaad ay ku heesaan badeecada? fikirkaaga iyo aragtidaada ku cabir qaybta hoose ee fariimaha ama commentiga. muuqaalkan aad daawanaysidna like saar si uu u gaaro saaxiibo badan, kana mid noqo saaxiibadan ku saaxiibnay barta YouTube ee Maxamed Shaacirka adigoo subscribe saaraya isla markaasina gambaleelka furanaya si ay kuu soo gaaraan wararka iyo warbixinada xiisaha badan leh sida maalinlaha bartan ugu soo tabino. waanaad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan meel kasta oo dunida iyo daafaha caalamka